nabi Suleymaan alayhi salaam nin ay diris ahaayeen macrifana ay ahaayeen ayaa maalin maalmaha kamida u yimid oo ku yiri nabi Suleymaanow waxaan doonayaa inaad nagala soo qayb gasho aroos oo wiilkayga ayaa aroosanaya nabi Suleymaan ayaa ka ajiibay maalintii balanta ay ahayd markii uu soo baxay oo uu soo aaday arooskii ayaa waxa dhex uga hor yimid nabi Suleymaan malakul maut markaasuu ku yiri xageed u socotaa nabi Suleymaanow nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam ayaa malakul maut ugu jawaabay waxaan ku socdaa aroos la iga marti qaaday hayeeshee malakul maut ayaa ku yiri aniguba waxaan ku socdaa reerka arooska ah hayeeshee waxaan ugu socdaa arrin kale oo wiilka aroosaya ayay ajashiisu dhamaatay oo in aan nafta ka soo qaado ayaan doonayaa arrintii ayaa ku adkaatay nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam markaasuu naftiisa la hadlay oo isiri maxaad ka tagaysaa arooskan murugada isku bedelaya oo wiilka aroosayba uu dhimanayo markaasuu nabi Suleymaan iska laabtay oo uu gurigiisa ayuu ku laabtay kolkii waagi uu bariyay ayuu reerkii soo aaday nabi Suleymaan alayhi salaam si uu bal uga qayb galo tacsidii iyo oo reerku uga wardoono markii uu yimid gurigii nabi Suleymaan wuxuu la kulmay arrin ka gedisan oo albaabka markii uu garaacay baa waxa ka furay yaani wiilka aabihiis oo aan wax muruga ahi aysan ka muuqaneenin wiilkii aabihi ayaa weydiiyay yaani nabi Suleymaan maxaad noogu imaaweysay rasuulka Allah waan ku sugaynay nabi Suleymaan waxa uu ku jawaabo waa uu garan waayay maxaa yeelay wuxuu arkaa reerkan inaysan tacsi gelin oo wiilka arooska ah uu sa dhimanin malakul mautna uu ku yiri ajasha wiilka oo go'day ayaan u socdaa inaan soo qaado markii uu nabi Suleymaan uu maskaxdiisa isweydiiyay sida ay wax yihiin durba malakul maut ayaa istusiyay oo ku yiri nabi Suleymaan ma waxaad isweydiinaysaa ballantii ama warkii shalay aan ku sheegay oo aan suurta gelin ha ayuu ku yiri nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam malakul maut ayaa ku yiri ajasha wiilka shalay ayay ku ekeyd oo markiiba waxaan u socday inaan waxa nafta ka soo qaado hayeeshee wiilka aabihiis ayaa waxa uu sadaqa siiyay islaan masaakiina oo arooska ka soo qayb gashay oo banaanka joogtay islaantii ayaana ugu duceysay oo tiri arooskii aroosadaba cimrigooda Allah dheereey oo ducadii ay duceysay islaantaas darteed ayaa waxa lagu dheereeyay ajasha wiilka يعني قصدا waxayna tusaysaa oo aan ka qaadanaynaa sadaqadu in cimri dheeri ay leedahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay hadii aad doontaan in cimrigana la idin dheereeyo risaqana la idin waasac yeelo qaraabada xiriiriya qaraabada oo la xiriiriya ama sadaqadu waxa ay keensanaysaa cimri dheeri ay keensanaysaa iyadoo fadaa'il fara badan oo kalena ay xambaarsan tahay xadiiskii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa daawu mardaakum bisadaqa kuwiina xanuunsanaya sadaqada ku daweeya qisadan ma ahan qiso saban hore dhacday aan ka sheekeen doono waa qiso xilli aan sii fogeyn dhacday waxayna tusinaysaa sadaqadu inay daawo u noqon karto ruux xanuunsanaya waxay ka dhacday dalka Sacuudi Carabiya hooyo ayaa waxay ahayd mid ka xanuunsata labada kiliyood oo labada kiliyoodba waa la dhiqi jiray oo waa la sifeyn jiray barigii dambe ayaa reerkii hooyadan waxay go'aan ku gaareen inay raadiyaan ruux ay kili ka iibiyaan oo ay hooyadan kili uga iibiyaan si ay ugu noolaato intaas kadib waxa ay heleen qoys danyar ah ama faqiir ah gabadhoodii oo ay kili ka iibsadaan qoyskiina way ku aqbaleen lacag 300 oo kun oo riyaal ah ayuu heshiisku ku dhacay gabadhii yareed ayaa la soo kaxeeyay ayadoo la doonayay in biri subax amaliye ama operation lagu sameeyo si kilida hooyadan loogu bedelo gabadhii ayaa kolkii ay habeenkii tahay ooysay hooyadii ayaa weydiisay maxaad ku ooysay gabar yahay markaas ay tiri waxaan la yaabanahay oo la calool xumeysanahay yaani reerkayga faqriga haya oo ku sababay in ay kilideeda iibsadaan hooyadii kilida iibsanaysay ayaa arintaas ka calool xumaatay markaas ay wiilkeeda u yeertay oo ku tiri ii keen lacagtii wiilka ayaa ku yiri hooyo markii biri shaqada la galay kadib ayay ballanto eed inaan lacagta bixino maye ii keen bay ku tiri lacagta ayuu u keenay waxa uu nafarta ka saartay hooyadii gabadhii yareed waxay ku tiri kilidaadana ma doonayo orod reerkaaga wala laabo oo tag gabadhii had murugada loo oynaysay durba farxad ayay la ilmaysay oo ilin farxadeed ayaa ku soo istaagtay reerkeeda ayayna lacagta kula laabatay hooyadii subax dhakhtarka ayay wacday waxayna ku tiri ii kaalay saaka ma jirto qaliinkii ballantu ay ahayd balse sida caadada ahaydba kiliyaha ayaad ii sifeey doontahay dhakhtarkii subaxii markuu yimid oo uu doonayay inuu kilidii sifeeyo arrin cajiib ayuu ku arkay hooyadii maxaa yeelay hooyada labadeeda kiliyoodba markaan way shaqeynayaan oo way caafimaad qabaan dhakhtarka hore u sifeyn jiray ayay fajiciso ku noqotay arrintan hooyadan labada kiliyoodba ay shaqagabka ahaayeen isla markaasna ku ballansaneedba in kili loo saaro qof kale
oo haddana labadeeda keliyood ay shaqaynayaan. arrintii markuu u weydiiyeyna kaliya waxay u sheegtay wax dawaa inaysan qaadanin oo ay sidaas hawshu ahayd kaliya ay ka baqsatay gabadhiina lacagtii ay sadaqa ahaan u siisay. xadiiskii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ahaa kuwiina xanuunsanaya ku daweeya sadaqadu halkaas ayuu ka soo baxay oo aad ku arkaysaa iyadoo marka horeba hubaal ay ahayd in hadalka nabi maxamed uu yahay mid xaqiiqa. qisadan waxayna tusinaysaa sida sadaqadu ay u daweyn karto ruuxa bukaanka oo xanuunsanaya. qofka marka uu dhinto kadib yani ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayad uu wuxuu ku leeyahay waxa hantida ood haysataan inta iina dhimanin ka hor la baxa maxaa yeelay fayaquulu rabbi lawla akhartanii ila ajalin qariib fa asaddaqa wa akun min as-saalihiin. haddii kale hadhow baad oran doontaa rabbiyow haddii ajal yar aad i dib dhigi lahayd oo cimriga in yar aad i dib dhigi lahayd waan sadaqaysan lahaa. lama sheegin qofkan yani muusan dhihin waan salaad tukan lahaa waan xajin lahaa laakiin wuxuu yidhi waan sadaqaysan lahaa. culimmadu waxay leeyihiin halkaas waxayna tusinaysaa qofka markuu dhinto kadib sadaqada weynaanteeda ayaa la tusi doonaa. inta aanan dhimanin oo aan noolnahay hantida rabbi tabaaraka wa tacaala uu ina siiya haba yaraatee wax uun aan ka sadaqaysanno si adduunyadana aan ugu liibaano aakhirana kuwa rabbi hooskiisa harsada aan uga mid noqono.